Qaranka Baydhabo 3-5 Juun 2018 Golaha Amniga Qaranka ayaa kulankoodii joogtada ahaa ku yeeshay magaalada Baydhabo 3-5 Juun 2018 shirkaas oo ka dhacay xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed ee Baydhabo waxaa looga hadlayay arrimaha amniga qaranka waxaana shir gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaa sidoo kale shirka ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Cabduweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariiso wasiirka koowaad ee Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka amniga gudaha wasiirka difaaca la taliyaha amniga qaranka wasiirada dowlad goboleedyada iyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida goluhu wuxuu u mahadcelinayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo dhammaan hay'adaha iyo shacabka Koonfur Galbeed oo si habsami leh u martigeliyay shirkan goluhu wuxuu sidoo kale u mahadcelinayaa ciidamada amniga Koonfur Galbeed ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM qodobka koowaad arrimaha amniga goluhu markii uu dhageystay talooyinka ay soo jeediyeen guddiga farsamada ee amniga qaranka tixgeliyeen aragtida iyo talooyinka ku saabsan amniga dalka goluhu wuxuu isku raacay qodobada hoos ku xusan kow madax bannaanida golaha amniga qaranku wuxuu adkeynayaa midnimada wadajirka iyo madax bannaanida Soomaaliya in ay tahay lama taabtaan laba ka hortagga khataraha golaha amniga qaranka markii uu dhageystay khataraha amni ee argagixisadu ka geysanayaan dalka waxa uu adkeynayaa in la dardar geliyo qalabaynta iyo tayeynta ciidamada qalabka sida labada heer lana siiyo tababaro iyo xirfado la xiriira qaababka looga hortagi karo falalka argagixisada qorshaha kala guurka golaha amniga qaranku wuxuu ansixiyay qorshaha kala guurka kaasoo loo arkay inuu yahay qorsho horseedaya in Soomaalidu hanato kuna filaato amnigeeda iyadoo la raacayo talaabooyinka soo socda kow in si wadajir looga miro dhaliyo fulinta wajiga koowaad ee qorshaha kala guurka oo dhigaya qaabka lagu howlgelinayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliska ee labada heer oo ay ka mid yihiin daraawiishtu laba ciidamada ka tirsan daraawiishta Koonfur Galbeed ee qayb ka noqonaya howlgallada qorsheysan ee lagu furayo wadada muhiimka ah ee u dhaxaysa Muqdisho iyo Baydhabo howlgalkan waxaa doorka hogaamineed qaadanaya guddiga amniga ee Koonfur Galbeed waxayna ciidamada ka amar qaadanayaan taliska ciidamada xoogga dalka inta lagu jiro howlgalkaas guddiga qaran ee isku dhafka ciidamada ay la yimaadaan muddo 30 maalmood ah gudahooda qorshe howleedkooda afar in qorshaha kala guurku uu noqdo mid dhammaystiran oo ay ka mid yihiin dadaalada xasilinta soo kabashada dhaqaalaha sareynta sharciga iyo cadaaladda afar dhammaystirka qaab dhismeedka amniga qaranka goluhu wuxuu ansixiyay in muddo 30 maalmood gudahood ah lagu howlgeliyo xafiisyada amniga dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir si loo dardargeliyo in golaha amniga dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay noqdaan kuwo waajibaadkooda shaqo guta 5 goluhu wuxuu isku raacay in muddo 60 maalmood gudahood ah guddiga farsamadu ay ku fuliyaan qodobka 1.2 ee go'aankii 6 ilaa 10 bishii Febraayo ee 2018 kaasoo qeexayay code dowladda federaalku waxa ay ka caawinaysaa ciidamada booliska dowlad goboleedyada oo ay ku jiraan daraawiishtu hub saanad agab ciidan raashin daawo gunno tababar iyo tayeyn ee kala qayb qaadan doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgallada lagula dagaalamaya argagixisada goluhu wuxuu ku boorinayaa ummadda Soomaaliyeed inay u midoobaan la dagaalanka argagixisada 6 goluhu wuxuu isla qaatay in Galmudug iyo Puntland
oo aysan joogin ciidamada amisom laga caawiyo howlgallada ka dhanka argagixisada al-shabaab iyo daacish oo ku sugan buuraha galgala deegaanada bariga fog iyo koonfurta galmudug lagana taakuleeya saddexda qaybood ee qorshaha kala guurka 7 goluhu wuxuu soo dhaweynayaa isbedelada wax ku oolka ah ee laga wada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin sida qaab dhismeedka ciidanka midaynta tababarka iyo hagaajinta anshax iyo aadaabta ciidanka iyo sidoo kale qaabeynta hanaanka dalacsiinta saraakiisha iyo saraakiil xigeenada oo la waafajinayo sharciga dalacsiinta 8 goluhu wuxuu farayaa guddiga dib u habaynta booliiska federaalka ee hoos yimaada wasaaradda amniga gudaha inay ku soo dhammaystiraan qaabka dib u habaynta booliiska federaalka ah muddo 90 maalmood gudahooda 9 goluhu wuxuu bogaadinayaa howlgallada sugidda amniga caasimadda iyo barnaamijka darisaynta ee ka socda degmooyinka gobolka Banaadir wuxuuna qirayaa in deegaanada ku dhow caasimadda ee Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose ay qayb muhiim ah ka yihiin sugidda amniga caasimadda intaas waa intii amniga ku saabsaneed arrimaha siyaasadda goluhu wuxuu sidoo kale falanqeeyay qodobada soo socda habka doorashada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee sanadka 2020 iyo wadaagga kheyraadka dabiiciga ah bilfur shidaalka iyo macdanta goluhu wuxuu bogaadinayaa qodobkiisa koowaad waxqabadka guddiga wadaxaajoodka iyo wasaaradaha ka shaqeeya tubta siyaasadda loo dhan yahay goluhu wuxuu bogaadinayaa horumarka laga sameeyay howlaha la xiriira dib ula falgelidda hay-adaha dhaqaalaha adduunka gaar ahaan wada shaqaynta ay xukuumaddu la leedahay hay-adda lacagta adduunka IMF iyo bangiga adduunka World Bank oo uu goluhu dhiiri gelinayo in la sii adkeeyo wada shaqayntaas si wada jir ahna loola dagaalamo musuqmaasuqa lana joogteeyo nidaamka isla xisaabtanka goluhu wuxuu go'aamiyey in si degdeg ah loo mideeyo canshuuraha dalka sida canshuurta furdooyinka macaashka shaqaalaha iyo faa'iidada ganacsiga goluhu wuxuu ku heshiiyey in dalka laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020 sida ku cad heshiiska habka doorashada ee lagu saxiixay magaalada Baydhabo 5 bisha Juun 2018 goluhu wuxuu soo dhaweeyay isla markaasna bogaadiyay horumarka laga sameeyay wada tashiyada caqabadaha ka hor imaan kara doorashooyinka iyo daraasaadka diiwaangelinta codbixiyayaasha wuxuuna goluhu faray in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soo dhammaystiraan kala xulashada nidaamka diiwaangelinta 6 goluhu wuxuu isla qaatay in howlaha dib u eegista dastuurka la sii dardargeliyo laguna soo gabagabeeyo sanadkan 2018 ayada oo qodobada dib u eegista loo kala horumarinayo sida ay u kala muhiimsan yihiin 7 goluhu wuxuu heshiis ka gaaray lahaanshaha maamulka iyo wadaagga kheyraadka dabiiciga ah ee dalka sida ku cad heshiiska wadaagga kheyraadka dabiiciga ah ee lagu saxiixay magaalada Baydhabo 5 bisha Juun 2018 goluhu wuxuu faray guddiga farsamada ee Golaha Amniga Qaranka in ay soo gudbiyaan hanaanka cadaaladda iyo asluubta shirka xiga ee la qabanayo bisha August iyadoo laga ambaqaadayo go'aamadii shirkii wasaaradaha cadaaladda ee ka dhacay magaalada Jowhar bishii Janaayo 2018 goluhu wuxuu go'aamiyey in la howlgeliyo xubnihii ay dowlad goboleedyadu u soo magacaabeen guddiyada dib u eegista dastuurka 10 goluhu wuxuu go'aamiyey in la dardargeliyo wadaxaajoodka arrimaha federaalka ah si loo dhammaystiro hanaanka awood qaybsiga ee ku qeexan qodobada 53 iyo 54 ee dastuurka ku meel gaarka ah 11 goluhu wuxuu soo dhaweynayaa hindisaha lagu abuurayo Golaha Dhaqaalaha Qaranka ugu dambeyntii goluhu wuxuu si wada jir ah tacsi tiiraanyo ugu dirayaa xildhibaanadii iyo dhammaan dadkii ku dhintay weeraradii xaqdarrada ahaa ee ka dhacay gobolka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe wabillahi tawfiiq